سلام من الله عليكم ورحمته وأخيارتيدا قيمها iyo qadarinta mudan ee nagu xidhan ku soo dhawaada qodobo gaagaaban oo caawa halkan idinka soo gudbinayno aan ku bilaabay sida laga warqabo xarunta caafimaadka ee ku taala magaaladaasi Cusub ama Cundufo ee ku taala galbeedka gobolka City ayaa waxa ka jirtay baahi xooggan oo dhinaca adeega caafimaadka gaar ahaan dhinaca dawada haddaba baaqi ka soo yeedhayay shacabka ku dhaqan aagaasi magaalada Cundufo xaruntaasi caafimaadka ayaa waxa kormeer ku tagay tiim uu hogaaminayo hoggaanka nabadgelyada gobolka City mudane Ibrahim Hussein Khayre ama baahiyaha asaasiga oo ka soo arkay xaruntaasi ayaa waxa si habsami looga jawaabay oo la gaarsiiyay dawadii xaruntaasi caafimaadka u baahnayd siday noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xarun magaaladaasi Cundufo bismillah kullee waxaan joognay waxa weeye waa xarunta caafimaadka ee magaalada Cundufo amba Cusub codsigii aan gobolka u gudbinay maartaanay xubnihii noo yimid ee hoggaanku uu hogaaminayay marka baahidii aan u gudbinay maartaanay loo sii gudbiyay wasiirka caafimaadka baa laga soo jawaabay waxaan leenahay walaalaha wasiirka caafimaadka uu hogaaminayo waad mahadsantihiin baahi weyn buu shacabku u qabeen arrintani oo xarunta caafimaadka wax dawo oo dhex taal ma jirin marka markii dawada hogaankuna soo gaadhay maareeyaha dhakhtarka iyo hoggaanka ayaa kulmay baahida dhakhtarka markuu maareeyo ka warbixiyay hoggaankuna maartaan arrinta uu gudbiyay ilaa heer deegaan oo wasiirka u tabiyay marka arrintii way soo gaadhay saaka taariikhdu ay tahay 12 bisha afraad marka waxa weeyeen hadda imika saacada la joogo gaarigiina soo galay oo dawadiina waa taas arkaysaa arrinta maartaan waqti adag maadaama lagu jiro jilaal oo kale leedo dadku bogsaanta u badan yihiin dhakhtarkuna waa ka arkaysaa sariirihii laftiisa dayactir badan baa lagu sameeyay oo dhakhtarka dayactir badan oo gobolka arrinta isaga laftiisa sameeyay oo hoggaanku marka wax badan oo ka beddelay jirtay marka walaalaha waxa leenahay waa maasantii xukuumadeeda insha Allah wixii dambe ee baahi jirtana waan la soo xirsiinaynaa khayr baan rajaynayna sidoo kale qodobka kale idin hayno waxa kamid ah waa magaalada Biki ee ku taala degmadaasi Biki waa magaalo suuq weyn oo ku taalo saylad xoolo la iskaga kala yimaado dhammaan dadka ku dhaqan degmooyinka galbeedka iyo sidoo kale deegaanka Oromiyaba waana magaalo la isku dhaafsado kala iibsiga xoolaha iyo badeecadaha kala duwan suuqaasi ama sayladaasi xoolaha ayaa waxa aad ugu xidhan deegaanka Oromiya oo xoolaha ka kala iibsada isla markaasina waxaad arkaysaa in suuqaasi labada maalmood ee Salaasada Arbacada aad u camiran yahay isla markaasina la isku dhaafsado xoolaha kala duwan sida adhiga looda iyo geelaba sida waxaana halkaasi kula kulmay shirkado kala duwan oo ka yimid deegaanka Oromiya oo xoolaha ka iibsanaya isla markaasina u iibgeey ilaa iyo Mojo iyo deegaanada Oromiya iyo deegaanka Amxaradaba waxaana arrintaasi dhalisay natiijada dhinaca nabadgelyada iyo amniga iyo isdhexgalka bulshada sidoo kale degmada Maayso xarunta kumeel gaadhka ee Mulli waxa iyadna ku taala saylad xoolo oo iyadna la isku dhaafsado xoolaha isla markaasina shacabku ay ku kala iibsadaan xoolaha noocyadiisa kala duwan isla markaasina waxa iyadna laga faa'iideystaa waa maalmaha Sabtida iyo Axadda oo shacabka ay isku dhaafsadaan magaaladaasi Mulli ayaa magaalada kaliya laga mamnuucay in lagu kala iibsado khamrida iyo mukhadaraadka isla markaasina waa magaalo la isku dhaafsado badeecadaha noocyadiisa kala duwan haday tahay xoolaha geela adhiga iyo looda sidoo kale dhinaca khudaarta kala duwan ayaa waxa ay deegaanka Oromiya u soo iibgeeyaan khudaarta noocyadeeda kala duwan taasi oo ay ka dhalatay natiijada isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada sidoo kale qodobka kale idin hayna waxa kamid ah waa bulshada barakacayaasha ee agoonta ku sugan degmooyinka Biki iyo degmooyinka Afdam oo baaq u diraya shacab muxsiniinta in caruurtaasi lagu laayay dagaaladii kala duwan ee galbeedka gobolka City
ay u baahan yihiin in muxsiniintu ay ka qayb qaataan sidii dhar ciido iyo sidoo kale taageeraba loogu fidin lahaa waxaana halkaasi ku sugan caruur aad u tiro badan oo ugu badan yihiin dadkii ka hadhay xasuuqii Garbaciise iyo sidoo kale Cadayti iyo gudaan shacabkii dhibaatada fara badan ay ka soo gaadhay dagaaladii galbeedka gobolka City qodobkan ku soo afmeerayo waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Ayshaca waxauna sameeyay hal abuur kala duwan oo dhinaca teknoolajiyada oo isku dayaya isla markaasina waxa uu sameeyaa noocyada kala duwan ee gawaarida ilaa iyo waxa isku dayaya inuu sameeyo helicopter wiilkan oo hal abuurkiisu heer sare yahay isla markaasina u baahan in la taageero loo muujiyo ayaa hadda waxa uu sameeyay waxyaalo mucjiso ah oo caruurtu gawaarida caruurtu ku ciyaaraan oo haday tahay gawaarida Land Cruiser-ka basaska iyo siyaarada iyo sidoo kale helicopterada isagoo adeegsanaya walxaha kala duwan wiilkaasi uu aad u yartahay ayaa waxa uu yahay mid hal abuur iyo sidoo kale talanti ama ilaahay hibo u siiyay sameeysta noocyada kala duwan wiilkaasi oo hadda isku dayay inuu sameeyo helicopter iyadoo sidoo kale gawaari yar yar ayaa hadda hadii uu helo in la gacan qabto sameyn kara ilaa iyo waxan wax ka weyn waana arin ku dayasho mudan wiilkaasi dhalinyarada ku nool degmada Ayshaca waa khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waxa inta inoogu dhoon qodobadii caawa idinka haynay bartaynu ku leenahay YouTube-ka ee Sima TV intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah